Jubbaland oo markii labaad boqolaal ka tirsan ciidanka militariga Soomaaliya oo dib ugu soo daabulaysa magaalada Raskamboni ayagoon u soo dirtay magaalada Muqdisho. Bal ila daaw muuqaalkan. waa boqolaal ciidan oo ka tirsan militariga Soomaaliya oo diyaarad laga soo saaraya magaalada Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo ay dawladda Soomaaliya ay ciidamadaasi geysay toddobaadyo ka hor kadibna ay halkaas ay ku dagaalameen ciidamada dawladda iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland. soo dhawo warbixin arintaas ku saabsan ayaan jecelahay inaan kula wadaago haddii ay tahay markii ugu horeysay muuqaalka ku soo gaara like saar siina share garee haddii aadan ka mid ahayn saaxiibada sida joogtada ah nagu xiran fadlan page-ka follow dheh si mar walba u hesho warar huban. dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta mar kale deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose waxa ay diyaarad military ay ka soo saareen askar ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya kuwa oo dhawaan lagu qabtay dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacay deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose. dagaalkaasi oo u dhaxeeyay ciidamada daraawiishta maamulka Jubbaland iyo sidoo kale ciidamada militariga xoogga dalka Soomaaliyeed. dagaalkaasi oo aad u qaraaraa ayaa ugu dambeyntii waxa ku adkaaday ciidamada maamulka Jubbaland oo halkaasi ama gacan ku haynta deegaanka Raskamboni ay si buuxda ula wareegeen. ciidamada dawladda Soomaaliya ee dagaalka kula galay kuwa maamulka Jubbaland ayaa qaarkood waxay gacanta u galeen ciidamada maamulka Jubbaland oo muddooyinkii ugu dambeeyay gacanta ugu jiray ugu dambeyntiina maanta diyaarad ka soo saaray deegaanka Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose. sidoo kale wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamo qaar oo ka tirsan ciidanka dawladda Soomaaliya oo boqolaal gaaray in ay u baxsadeen ama ay u carreen dhinaca xadka dalka Kenya. saraakiil ka tirsan ciidanka maamulka Jubbaland iyo mas'uuliyiin kale ayaana garoonka diyaaradaha magaalada Raskamboni ka soo gootiyay askarta ciidanka dawladda Soomaaliya oo iskugu jira Gorgor iyo Haramcad kuwaas oo maanta loo dhoofiyay magaalada Muqdisho oo welibana ku soo wajahan saacadaha soo socda inay soo gaaraan isla magaalada Muqdisho. boqolaalka askar ee maanta diyaaradda laga soo saaray magaalada Raskamboni ayaa qaarkood wajigooda waxaa ka muuqday niyad jab iyo sidoo kale in halkaasi ay ku fashilmeen welibana qaarkood oo halkaasi ka hadlay iyo saraakiisha halkaasi ka hadlay ay sheegeen in askartan ay yihiin kuwa ay soo qaldeen dawladda Soomaaliya welibana loo soo diray deegaanka Raskamboni. dawladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in ciidamada halkaasi ay geysay ay ujeeddo aysan ka lahayn in ay weerar ku qaado maamulka Axmed Madoobe ee Jubbaland balse qorshaha dawladda ay markaasi ay ku dhawaaqday ay ahayd in ciidanka halka la gaarsiiyay balse maamulka Jubbaland ayaa sheegtay in dawladda Soomaaliya arintaasi ugu soo gambadanayso welibana ay ciidamada halkaasi ay geysay ay ujeeddada ay ka leedahay ay tahay in ay dagaal la gasho maamulka Jubbaland iyo sidoo kale madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waa wajiga labaad ee maamulka Jubbaland ay ciidamadani dawladda Soomaaliya ka tirsan ee diyaarad ka soo saaraysa deegaanka Raskamboni iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay ay gacanta ku hayeen ciidamadaasi kuwa maamulka Jubbaland maantana ugu dambeyntii ay diyaarad ka soo saareen magaalada Raskamboni ay si buuxda halkaasi u qabsadeen ciidamada dawladda Soomaaliya ee halkaasi muddooyinkii ugu dambeeyay ay geenaysay. sidee u aragtaa ciidamada ay dib ugu soo celisay magaalada Muqdisho maamulka Jubbaland ay maanta ay diyaarad ka soo saareen magaalada Raskamboni ee gobolka Jubbada Hoose. haddii aad intaas soo gaartay muuqaalka like saar siina share garee si saaxiibada u gaaro waad ku maasantahay daawashadaada.